madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan degdeg ah waxa uu isugu yeeray saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan hogaamisa kulan looga hadlayo amniga xuduudaha ayay ku yeelan doonaan madaxtooyada qaranka faahfaahin la xiriirta ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook ee page-ka iyo si lamid ah barta YouTube-ka oo si toos ah muuqaalada wararka iyo warbixinada aan ugu soo baahiyo sideebaad u aragtaan kulankan degdega maxayse kula tahay inuu ka soo bixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray dhammaan saraakiisha hogaamisa afarta talis ee ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ayna kala yihiin afarta taliska ciidanka xoogga dalka booliiska asluubta iyo nabad sugidda dhammaan waxa uu kala hadli doonaa saraakiisha hogaamisa talisyadan amniga xuduudaha qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warbixin guud waxa uu ka dhageysan doonaa taliska ciidanka xoogga dalka iyo taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA xogaha iyo sidoo kale diyaar garowga la xiriira in ay dalka si guud uga difaacaan isku dayga dowladda Itoobiya ay dalkeena ugu soo daadgureynayso ciidamo aan sharci ahayn kuwaas oo ay doonayso in fariisimo muhiim ah ay ka sameystaan qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulankan waxa la sheegay in ay ku wehelin doonaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya la taliyihiisa amniga qaranka waxaana saacadaha soo aadan la filayaa in kulankan uu ka qabsoomo xarunta madaxtooyada qaranka shirkan uu shir gudoomin doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin miradhal u noqon kara isla markaana xadidi doona ama ka hortagi doona qorshaha Itoobiya ku doonayso in ciidamada ku sugan xadbeenaadka ay gudaha dalka soo geliyaan waxa guud ahaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in gudaha dalka ka soo galaan Itoobiya ay ka wadaan xuduudaha aynu la wadaagno iyadoo oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku guuleysatay in ay dib uga celiso ciidamo doonaya in gudaha degmada Matabaan ay fariisin ka sameystaan toddobaadkii hore maalintii Jimcaha ahayd waxayna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku guuleysatay in ciidamo fara badan ay ku daadgureyso xuduudaha gaar ahaan gobolada Gedo Bakool iyo Hiiraan halkaas oo si weyn loo xaqiijinayo ammaanka waxaana ay ciidankan ka hortagi doonaan isku dayga dowladda Itoobiya waxa ay ka carootay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wada hadal kala furto kiiska arinta badda oo kol hore Muuse Biixi Cabdi ee heshiis ay kala gaartay ay keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya uu xumaado kulankan degdeg ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la leeyahay saraakiisha hogaamisa talisyada kala duwan ee ciidanka dalka ayaa natiijada ka soo baxdo waxa la filayaa in dhaqangelintiisa ay qaadan doonto 24 saac wax ka yar wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaan idin kula soo wadaagi doonaa page-kan rukunta oo isha ku haya nabadgelyo